wuxuu caalamka ka qariyey isla markaana si qayaxan u dafiray inuu dagaal kula jiro jabhaddii SNM. wuxuu isku dayey inuu ka hortago wax kasta oo beentaa qaawan kashifaaya. gaashaanla sare duuliye Faarax Siciid oo majeerteen ahaana taliyihii ciidanka cirka ay Hargeyso, iyo gaashaanla sare Maxamed Aadan Birir oo Mareexaan oo isna ahaa taliyihii ciidanka cirka ee Berbera, ayaa ku dalbaday duuliyayaashii diyaaradaha MiG-17 iyo MiG-19 inay duqeeyaan oo si culus u bamgareeyaan dad iyo wixii ay arkaan si ay u horjoogsadaan qaxootiga ku sii qulqulaya dhinaca xadka Itoobiya. ujeeddada Siyaad Barre waxay ahayd inuu dunida ka qariyo xaqiiqda jiritaanka ee dagaalka. gaashaanla sare Faarax Siciid oo majeerteen taliyihii ciidanka cirka ee Hargeysa ee isagu ahaa ninkii gacanta ku hayay howlgelinta diyaaradaha, ayaa markii howshu ku ballaaratay u habarwacday taliyayaashii saldhigyada ciidanka cirka ee Walaweyn ee ku yaallay Balidoogle iyo Baydhabo. gaashaanla sare duuliye Khaliif Ciise Yuusuf oo majeerteen taliyihii ciidanka cirka ee Balidoogle oo hogaaminaya raxan diyaaradaha noocoodu yahay MiG-17 iyo MiG-19, iyo gaashaanla sare duuliye Cali Ibraahim Axmed oo reer Banaadiri taliyihii ciidanka ee Baydhabo oo isna horkacaya raxan diyaaradaha loo yaqaan Hunters, ayaa si degdega uga soo degay garoonka Hargeysa kuna biiray howlgalkii duqaynta ee hore u socday. ciidankii hore ee dagaalka waday oo ku sugnaa walwal iyo walbahaar ayaa markay arkeen ama ka war heleen gurmadka diyaaradaha niyaddoodii si la yaab leh kor ugu kacday, waxaanay aamineen in iminka ay jabhadda SNM cagta marin doonaan. waxaa la abaabulay duulaan cir iyo dhul oo lagu qaado goobihii dadka shacabka ay u qaxeen iyo meelihii ay ku tuhmayeen dagaalyahanada SNM. waxaa markiiba sahan loo diray diyaaradaha la yidhaahdo Sensa oo ay wadeen duuliyayaasha kale duuliye Axmed Maxamed Maxamuud oo Mareexaan Suufi Jeylaani Maxamed oo reer Baraawo iyo duuliye Faarax Xaaji Salaad oo majeerteen iyo Yuusuf Juseed oo asna majeerteen iyo Xasan Yare oo duuliyaha asna ogaadeen sahankii kadib waxaa la qaaday weerarkii lagu doonayay in lagu soo afjaro halgankii SNM. duqayntii cirka iyo dhulkuba waxay si xiriir oo aan kala go' lahayn habeen iyo maalinba u socotay muddo dhowr bilood gaashaanla sare duuliye Yuusuf Maxamed Maxamuud Yuusuf Yare oo majeerteen oo waday MiG-17 waxa uu duqeeyay goob kasta oo uu ku arkay bidhaan dad iyo mid duunyada. xitaa xoolaha nool ee miyiga daaqaya muu dhaafi jirin. ninka oo gacan ku dhiigla Morgan ku abaalmariyey lacag fara badan iyo gaari Land Cruiser waxaa loo aqoonsaday inuu yahay sarkaalkii kaalinta koowaad ka qaatay burburkii dhinaca cirka ee loo geystay Somaliland iyo shacabkeedii. gaashaanla dhexe duuliye Maxamuud Xaaji Warsame Mooto oo dhulbahantaha ayaa isna ka qaatay kaalinta labaad ee duqaynta dhinaca cirka. kaalinta saddexaadna waxaa qaatay gaashaanla sare duuliye Mursal Muufo oo hawiye Abgaal Mursal waxa uu ku duuli jiray MiG-19. guud ahaan xasuuqii ciidanka cirka ee Soomaaliya ay ka fuliyeen geyiga Somaliland waxaa ka qayb qaatay saraakiishan hoos ku xusan. gaashaanla sare Khaliif Ciise Yuusuf oo majeerteen taliyihii ciidanka cirka ee Balidoogle. 2 gaashaanla sare Faarax Siciid oo isna majeerteen oo ahaa taliyihii ciidanka cirka ee Hargeysa. 3 gaashaanla sare Maxamed Aadan Birir Mareexaan oo taliyihii ciidanka cirka ee Berbera. 4 gaashaanla sare Yuusuf Maxamuud Maxamed oo majeerteen ahaana duuliye waday MiG-17. 5 gaashaanla sare Mursal Xaaji Axmed oo loo yaqaan Mursal Muufo oo isna Abgaal wadana diyaaradda MiG-19. 6 gaashaanla sare Maxamed Xasan Raag oo xawaadle duuliyana ka ahaa MiG-19 kuna dhex dhintay diyaaraddii uu ku dagaalamayay oo soo dhacday cilad farsamo awgeed. 7 gaashaanla sare Xuseen Aadan Ibraahim Samadoon oo duuliye MiG-19 ku dhex dhintay diyaaraddii uu ku dagaalamayay oo SNM-tu ay soo riday. 8 gaashaanla sare Axmed Gurxan Hoori oo ogaadeen duuliye MiG-19 oo ku dhex dhintay diyaaraddii uu ku dagaalamayay oo SNM ay soo riday. 9
gaashaanla sare maxamed axmed xaayow abgaal duuliye miig 19 kuna dhex dhintay diyaaraddii uu ku dagaalamayey oo soo dhacday cilad farsamo 10 gaashaanla sare xirsi maxamed faarax mareexaan duuliye miig 19 11 gaashaanla sare cabdulaahi xaaji oo ogaadeen ah taliye ku-xigeenkii saldhigga baydhabo 12 gaashaanla dhexe maxamuud xaaji warsame oo dhulbahanta ah duuliye diyaaradaha hantarka loo yaqaan 13 gaashaanla dhexe maxamed khaliif isaaq oo raxan weyn ah duuliye hantarka diyaaradaha loo yaqaan kuna dhex dhintay diyaaraddii uu ku dagaalamayey oo SNM-tu ay soo riday jabkii baahsanaa ee ciidankii cirka ka qabsaday dagaalkii ay la galeen jabhaddii SNM kasukow waxaa fadeexad iyo ceeb weyni dusha ka fuushay ciidankii cirka oo la ogaaday in magac mooyey aanay aqoon durugsan iyo khibrad toona u lahayn diyaaradaha dagaalka waxaa la ogaaday xitaa inay ku fashilmeen oo awoodi kari waayeen inay hor joogsadaan oo dib u celiyaan shacabkii aan hubaysnayn ee xadka Itoobiya u qaxayay wejigii labaad ee duqaynta dhinaca cirka oo ahaa kaalintii shisheeyaha calooshood u shaqaystayaasha ah ayaa furmay kadib markii duuliyaashii Soomaalidu ku fashilmeen dagaalkii jaamac buluug oo hawsha u xilsaarnaa ayaa si degdega uga keenay calooshood u shaqaystayaal ka koobnaa duuliyaal farsamo yaqaano iyo hal dhakhtar oo dalka lagu soo geliyey qaab dalxiisayaal waxaa la dejiyey guri dabaq oo ku yaalla degmada hodan xaafadda Taleex oo uu lahaa Cabdulaahi Cumar Ismaaciil Casaro oo majeerteen ah waxaa kale oo jirtay haweeney ragga calooshood u shaqaystayaasha la socotay oo la oran jiray Aajiye Robinson oo duuliye ka ahayd diyaaradda jaamac buluug lahaa oo nooceedu ahaa Cessna oo laba matoorley ah oo taksi ahaan uu kala goosi jiray Muqdisho iyo Nairobi kuna duuli jiray baaq afgarasho fight code diyaaradahaasi waxa ay qaabilsaneed daabulka khamriga iyo hilibka doofaarka calooshood u shaqaystayaashii laga soo kireystay South Africa iyo Zimbabwe waxaana ka mid ahaa 60 dambiile ee hoos ku qoran 1 duuliye J.R. Platewood oo pilot ah 2 M. Segmuller oo pilot ah 3 D.R. Jackson oo ah chief engineer 4 K. Jones oo ah engineer 5 C.D. Balfour oo ahaa armamentis 6 G.D. Harrell oo ahaa airframes waxaa saraakiishii ciidanka cirku qaarkood caddeeyeen in tirada calooshood u shaqaystayaashu intaa ka badnayd oo la isku badbedeli jiray calooshood u shaqaystayaashu marka ay hawadu ku jiraan ay wax duqaynayaan waxay isticmaali jireen code names ahaa jaamac iyo diini jaamac waxaa loola jeedaa jaamac buluug diini waa jifada qabiil ahaan oo ka soo jeeday siyaad bari inkasta oo calooshood u shaqaystayaashii shisheeyaha ay dad shacab gumaadeen hanti badan burburiyeen haddana aakhirkii lafahoodii ayay u baqeen oo way soo carareen duuliye Blakewood inta uu xakamaha u jaray diyaaraddii uu watay ayuu isna baarashuud ama dallad kaga booday diyaaraddiina waxay ku dhacday meel la yidhaahdo Balandoole oo ka tirsan degmada Buur-Xakabo jaamac iyo diini mar la weydiiyey inay ku noqonayaan dagaalka waxay ku jawaabeen hadal la macno ah murtida tiraahda adiguba caqlaad leedahee carab maxaa dhaama intaas waxaanu ku soo gabagabaynay sheekadii ku saabsanayd ama taariikhdii ku saabsanayd dadkii ka qayb qaatay xasuuqii Somaliland macluumaadka ay xambaarsan tahay warbixintani qayb waxaan ka soo xignay buugga la yiraahdo sababihii burburka Soomaaliya ee uu qoraaga magaciisu yahay Allah u naxariistay Cabdulqaadir Oromo qaybta kalena waxaa ku deeqay shakhsiyaadka hoos ku qoran 1 duuliye Suufi Jaylaani Maxamed Barwaani 2 Idris Shido oo ahaa gacanyarihii jaamac buluug ee hay xafiiskii Baledoogle 3 xisaabihii shirkadda Doodimeer ee Nairobi fadhiyay 1980kii 4 xogeeyihii taliyaha ciidanka cirka sareeyo guuto Cabdi Cismaan Maxamed Cabdi Caluuq waxaa soo diyaariyay waqti badan ku bixiyay waa maanta waa sidee Somaliland ilaahay waa mahad leh